wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Xadle Toosiye ayaa habeenkii xalay soo gaaray magaalada Ceerigaabo waxaana safarkan wasiirku qayb ka ahaa safarro kala duwan oo uu ku marayay qaar ka mid ah gobolada dalka iyadoo wasiirka safarkiisan ay ku weheliyeen qaar ka mid ah xubnaha kala duwan ee wasaaraddiisa wasiir Salebaan Ciise Xadle Toosiye oo saaka booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo ayaa wuxuu ka warbixiyay jeedka safarkiisa isagoo warbixino kala duwan ka dhageystay shaqaalaha isbitaalka Ceerigaabo sidoo kalena wuxuu kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee isbitaalku kooban yahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wasiirka sidan aniga waftigaygu waxaan ka soo kacay Laascaanood oo ku qabsanay shirkii sanadlaha ah ee wasaaradda oo caadi ahaan lagu qaban jiray magaalada Hargeysa hadda si aan u bedelay in sanadba gobol lagu qabto Ceerigaabo waxaan u nimid maadaama shaqada ka dhacday inaan xaaladda ogaano meesha shaqada marayso isla mar ahaantaana aan u kuurgalno hawlaha caafimaadka ka socda sida agaasimuhu sheegana aan ku qabsano shirkii gobolada lagu qorsheeyay markii wasaaradda aniga DG-ga loo magacaabay sanadkii 2013 bishii 7 isbitaalka Ceerigaabo uu xidhnaa wasiirkii xilka igu wareejiyay waxa ka mid ahaa xil wareejintiisii isbitaalka Laascaanood iyo ka Ceerigaabo uu xidhan yahay maantana wata laga shaqeynayo waxaanu sameynay maamul cusub aanu sameynay isbitaalkii daawooyin baanu keenay xirfadlayaal caafimaad oo nurses iyo dhakhaatiir baanu keenay wali maynaan gaarin meeshanu doonaynay qorshahan wadno in reer Ceerigaabo ama gobolka Sanaagba uu ka maarmo inuu socdaalo gobolada kale fogfog waxaanu keeni doonaa dhakhtar qalliin mid dumar haddii la keeno ku bilaabi doonaa haddii labada la keeno waxaan rajaynaynaa isbitaalku inuu iswadi doono sida isbitaalada kale gaari heer isku wada gobolka shaqada ka dilaacday afar qof oo ku dhintay oo shaqada dishay wasaaraddu gurmad aad u weyn bay samaysay waxaan soo dirnay 14 tiim iyo daawadii oo dhameystiran ilaahay mahadiis hadda waa la contain garay waa gacanta lagu qabtay wana istaagtay dadaalka wasaaraddu samaysay waana keenay booqashadiisa kadib waxa uu wasiirku u mahad celiyay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo oo uu sheegay inay kor u qaadeen adeegga caafimaad ee isbitaalka doonaya halkan inaan mahadnaq ballaaran ugu soo jeediyo maamulka cusub ee noo soo magacaabay isbitaalka oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan runtii qabtay waad aragtaan isbitaalka soo maray waxa kale halkan ugu mahad celinaya dhakhaatiirta isbitaalka joogta oo sidii simada iyo يوسف عبد الحسن عاد TV عالمي Somali Channel مقالة Ceerigaabo